dowlado cusub oo adduunka ah ayaa bilaabay inay ku biiraan wadamada soo saara shidaalka. Soomaaliya ayaa ka mid ah oo doonaya in shidaal dalka laga soo saaro. Shirkado shisheeye ayaa baaritaano ay ka sameeyeen gudaha dalkeena waxa ay muujiyeen cadeymo muujinaya in Soomaaliya ay leedahay shidaal badan. waqti hore ayay shirkado shidaal oo shisheeye ogaadeen in Soomaaliya ay ku keedsan yihiin shidaalkaasi oo qiyaas ahaan la ekaysiiyay dowladaha dunida ka tilmaaman xagga wax soo saarka shidaalka. dadka Soomaaliyeed dagahooda kuma cusbaa inay maqlaan shidaalka Soomaaliya ku jira. aqoon-yahano Soomaaliyeed oo shidaalka qoraal ka sameeyay ayaa sheegay in qiyaasta shidaalka Soomaaliya lagu sheegay intuu la egyahay. wargeys caalami oo la African Intelligence ayaa u shaaciyay in uu hayo xog cadeynaysa in shidaalka ku aasan ama ku duugan deegaanka Soomaalida guud ahaan inuu ka badan yahay shidaalka reserve-ka ama kaydka ku jira dawladda Kuwait. marka waxa la cabiray in ay mugiisu yahay 100 bilyan oo barrel ama 100 bilyan oo foosto oo wuxuu galay marka kaalintii Kuwait muddo kadib dawladda Kuwait waxay shaacisay in ay kayd kala heshay oo inta yar ka yar badan. marka imka Soomaalidu si muuqato cad waxay ka horeeyaan dalka Nigeria waxaana galeen kaalinta 8aad ee adduunka. Soomaaliya ayaa hadda leh wasaaradda batroolka taasi oo laga sugayo inay ka shaqeysiiso sidii Soomaaliya ay ugu biiri lahayd dowladaha shidaalka soo saara. dhawaan ayuu golaha wasiirada ansixiyay sharciga batroolka kaasi oo hadda hor yaala golaha shacabka. burburkii dowladii 1990 ka hor waxaa jira shirkado ay heshiis la gashay dowladii xilliga jirtay. wasaaradda batroolkana ayaa hore u sheegtay inay muhiim tahay in la ixtiraamo heshiiskaas kaasi oo meelo badan oo baaritaan lagu sameeyo ay muujinayaan in shidaal uu ku jiro balse aan la hubin. Luckily Soomaalida waxay aaminsan yihiin batrool Soomaaliya inuu ku jiro. ilaa hadda wax cadeyn ah oo batrool Soomaaliya inuu ku jiro in lagu tuhmo oo qaababkii geologiga meelihii laga qodi lahaa Soomaaliya inay leedahay laakiin Soomaaliya batrool ku jiro ceel inta la qoday uu ka soo budbud lahay oo dibadda u soo baxay ma jirto malaha. laakiin waxaa jirto waxyaabihii loo baahnaa all conditions xaaladihii loo baahnaa inay diyaar ahaadaan dhulka gudihiisa diyaar ku ahaadaan si batrool loo helo. Soomaaliya meelo badan ayay ka jirtaa laakiin Soomaaliya waa hubnaa batrool waa ku jira oo waa aragnay waa soo baxay. hadda rajo lagu cadeyn karo in la qodo. marka ujeedada hadda shaqooyinka hadda aan qaban doono sanadka 18 iyo waxa ka dambeeya waxay noqonaysaa shirkado batrool inaan la heshiino qodidii meelihii lagu tuhmaayay in la bilaabo si loo hubsado batrool waa jira ama ma jiro. waxaa jira meelo badan oo u diyaarsan shidaal in laga helo kuwaasi oo lagu sameeyo hubin ugu dambeyn la cadeeyay in shidaal uu ku jiro. waa 3 meel oo badda ah. meel galmudug ay ku aadan tahay galmudug inteeda badan actually oo badda ah meesha kale waxay ku aadan tahay koonfur galbeed waa Baraawe area labada dhinacba Baraawe dhinaca waqooyi ilaa marka soo gaaray dhinaca kale waxay soo gaaraysaa ilaa maaragtay meel ku aadan Jubbada Dhexe ay ku aadan waa su'aalisa dhinaca kalena waxa waa Kismaayo ilaa xuduudda Soomaaliya iyo Kenya la leedahay. aagaasna waa aaga saddexaad waa Kismaayo badeeda oo webi Jubba labadiisa dacal ah oo badda markuu galo ka bacdi Baraawe badeeda iyo galmudug badeeda. saddexdaas meel waa 3 meel la cadeeyay inuu maaragtay batrool tuhunka batroolka inuu ka jiro. Soomaaliya oo aan awood badan lahayn si ay shidaalka dhulkeeda ku tuhmayso u soo saarto ayaa wajahaysa caqabado badan oo dhanka ammaanka iyo sharciga awood qaybsiga kheyraadka dalka oo cadeyn. intaas waxaa sii dheer caqabado ka hor imaanaya si socoshada baaritaanka shidaalka iyo hardanka ay shirkadaha shidaalka baaro ugu jiraan inay Soomaaliya shidaalka baaraan. ugu horeysa Soomaalidu waxay soo mareen burbur dawladeed aad u baaxad weyn oo baahsan. taasna waxay keentay in aanay jirin dawlad adag oo control karta hawlgal sidaas oo kale saa u weyn. taasna waxay keenaysaa kalsooni yari xagga maalgashiga. waxaa loo baahan yahay hawlgal badan xagga maamul samida iyo yani hadii musuqa laga ilaaliyo iyo hufnaanta iyo tababarka xitaa shaqaalaha dawladda iyo ummadan ama dadkeenan
kasoo qalin jabiyay jaamacadaha adduunka ee jooga in la soo jiito si ay u noqdaan nooc kaabayaasha dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaaluhu wadooyin iyo dhismo maaha marka waxa loo baahan dadka in aad iyo aad loogu dadaalo marka ugu horeysa waxa muhiim ah in la ogaado in dalka Mareykanku uu sareeyay sahaminta shidaalka dalkan ilaa 80nadii ay hawsha waday marka hore Ingiriiska kaga horeeyay Talyaaniga iyo Faransiiska kadib Mareykanka meeshii soo galay dagaalkii Sukeeya dhacay 80nadii shaqadu way istaagtay 25 sanadood muddadii loogu talagalay hawlgalka inta badan Mareykanka lahaa wixii ka dambeeyay imka shirkadahan imanaya waxay yihiin shirkado yar yar oo dalal ka soo jeeda sida Australia Ingiriiska South Africa inta badan shirkadaha noocaas ama xitaa Ingiriiska waa qaar ku xidhan Mareykanka marka haddii la odhan lahaa Shiina iyo Ruushka soo gali taas waa arrin aad u fog